haddii aanay Soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dawladnimada dalka. dareen ka dhashay warjeedin golo wasiiradeed ee Soomaaliya ayaa bidhaabin iyo tilmaan ka bixisay dariiqa iyo jihada cusub ee ay kala qaadeen saaxiibadii hore ee nabad iyo nolol ee dadka hortooda isku ammaani jiray. khudbad aan hore loo maqal iyo fariin amar adag ah ayuu ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre la wadaagay golihiisa wasiirada bishii May ee sanadkii 2020. bulshada dhexdeeda waxaan marnabo oolin fikirka ah in khayre uu noqon karo siyaasi lahan siyaasadeed oo ka madax bannaan kan madaxweynihiisa. waxa ay u arkayeen dadku fuliye aan lahayn awood kala sooc iyo inuu xafiiska u joogo uu ugu adeego danta Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ku fikirno oo ogaataan laga bilaabo maanta balse khudbadiisii loogu magac daray danta dalka ee uu jeediyey ra'iisul wasaare hore kagana digay muddo kororsi dib u dhac doorasho iyo sida aysan Soomaalidu marnaba u aqbalaynin wax qarsoon oo inta badan ka dadan ayaa daha ka fayday shakhsiyadda khayrihii 3 sano iyo bar xukun ka fadhiyay. qaadasho la'aanta taladiisa markii uu xukun ka fadhiyay waxaa ka dhashay dhibaatooyin qof kastaaba eedeeda ka maquurto iyo in loogu magac dhabo waqtigana kama sugto. haddana dhiganaheenna maanta waxaynu ku eegaynaa masalooyinka muxaadarooyinkii khayre ee aan mudnaanta la siinin. 1. ka hor Julaay 2020 aqlabiyadda shacbiga Soomaaliyeed waxay u arkayeen hoggaanka Soomaaliya inuu dhabaha dawladnimada kaga sarreeyo shakhsi kasta oo xukunka soo maray. waxa ay u qiirsanaayeen howlkarnimo daacad lagu lamaaniyey balse shaqo ka tagistii khayre ayaa garab bannaan ku noqotay doontii badda taagnayd waxayna halis u gashay inay quusto ama degto 30 sano kadib. kuwa qoro isu dhiib qofba marayuu joogaa laakiin qof walba oo Soomaaliyeed waxa la rabaa dalka inuu u turo. cidda ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cidda markaas xukunka joogta. 2. xasan cali khayre mar kale ayuu ka digay in shaqadii socotay ee dawladnimada iyo danacafintu ay istaagtay waxaanay dad badan u arkayeen mar kale dhayal balse 6 bil kadib wasiirkiisii maaliyaddu waxa uu sheegay sagxadda la soo taabtay waa mas'ale kale oo mudnayd in la eego. 3. ciidamada qodob kale oo khayre si adag uga hadlay ayaa ahaa inaan ciidamada loo isticmaalin siyaasadda. waxa uu sheegay in xukuumaddiisu waqti iyo kharash ay gelisay balse sida muuqata arrinta ciidamada khayre kadib si muuqata ayaa u dhacday loona arkay ciidamada oo gebi ahaanba arrimaha siyaasadda ku milmay waxaana sida muuqata aan si fiican loo maaraynin hannaankii uu khayre sheegay. doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mid ah beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dawladda lagu kaalmeyn jiray. 4. maaraynta iyo maamulidda doorashada si loo ilaaliyo dhaxalka dawladnimada iyo qorisu dhiibidda waxa uu aad ugu celcelin jiray in doorasho loo dhan yahay la qabto loona wada sinaado balse muranka hareeyay doorashada ayaa loo arkaa inay tahay mid dhinacyada siyaasadda isku haya ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu aysan marin dariiqii habboonaa iyo soo jeedintii xasan cali khayre ee bishii May ee sanadkii 2020. isku haynta bulsho xasan cali khayre waxa uu ahaa nin ku dhex jira bulshada taageerayaasha xukuumadduna waxay u yaqaanaan madaalihii nabad iyo nolol taasoo ka dhigan inuu ahaa jookar ay ahayd inuu xukuumadda ka sii mid ahaado siina hoggaamiyo golaha wasiirada iyadoo laga faa'iidaysanaya dhammaan aragtidiisii ku wajahnayd xalka siyaasadda. 5taas qodob iyo kuwo kale ayaa noqday xujo aan sidii ahayd loo maarayn khayre kadib waxa ayna ka mid tahay wanaaggii uu ku hoggaamiyey 3 sano iyo barkii uu hoggaaminayay xukuumadda Soomaaliya waxaana uu ku naaloonaya hadda ama uu haystaa inuu yahay ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee soo mara xafiiska ra'iisul wasaarenimada balse jawaabaha ayaa looga fadhiyay xasan cali khayre haddii uu ku guulaysto xukunka madaxtinimada sida uu u maarayn doono doorashada soo socota maadaama uu muuqdo nin fahansan dhammaan dhibaatooyinka xilligan ay Soomaalidu isku hayso. doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa
la joojiyey qaar ka mid a caawinaadii ciidanka la siin jiray waxay keenaysaa in rajadii shacabku ay baaba'do baaba'aadda rajada shacabkana waxay ka turjumaysaa dowlad naga halowda oo dhalisa qaranjab iyo qabjab ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda